بسم الله الرحمن الرحيم maanta way bishu tahay 9 bishii 8aad waxaanu kulan warbaahineed kan u qabanaynaa inaan dhammaan shaqaalaweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan shaqaalaha hoos yimaada hay'ad shaqaalaha aan halkan fariin wacyigelin iyo tusaale iyo hoga tusaaleyn aan uga jeedino iyadoo taasina ay ku saleysan tahay xeerka shaqaalaha dawladda dhawaan dhaqan galay xeerkaasi oo runtii faahfaahin fara badan iyo nuqullo fara badan oo qodobo fara badan oo ku qoran ay ka sheekeynayaan waajibaadka qofka shaqaalaha lagu leeyahay iyo qofka shaqaalaha waajibaadku isaguna ku leeyahay shaqada runtii dhawaan hay'adda shaqaaluhu waxay waday dardargelin iyo fiditaan iyo wacyigelin ku saleysan xeerka shaqaalaha iyadoo aanu ku bilownay shaqaalaha dhawaan la qaadan doono ee shaqo qaran inaanu dhammaan nuqul kamid u qaybinay xeerka sidoo kalena aanu ku barnay ku tababarnay waajibaadka yacni xeerka uu iftiiminayo doorka shaqaalanimada marka fursadan iyo kulan warbaahineedkan waxaan runtii ku cadeynaynaa in dhammaan shaqaalaha dawladdu waajibaadka lagu leeyahay ka mid tahay inay u hogaansanaadaan qodobada iyo xeerarka ku qoran faafinta rasmiga ee lagu sameeyay xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 97 2022 oo dhaqan galay bishii 3aad ee sanadkan aynu ku jirno marka xeerkaasi waxyaabaha uu xaaraantinimaynayo ama uu ka reebayo shaqaalaweynaha qaranka waxaa ka mid ah inay siyaasadda galaan marka waad ka warhaysaan dhawaan ururo fara badan ayaa lagu dhawaaqay oo runtii mustaqbalka la rajeynaya inay noqdaan xisbiyo ururadaasi muwaadiniinta reer Soomaaliland oo dhan xaq bay u leeyihiin inay galaan taageeraan laakiin qofka shaqaalaha ee shaqaale dawladeeda xeerku waa ka reebay inuu siyaasadda galo sidaa daraadeed shaqaalaweynaha waxaan halkan fariin uga farayaa in siyaasaddaas iyo ururadaas iyo howlaha siyaasadda ee socda aanay qayb ka noqon ku milmin xisbiyada u dhawaanin kaaga wareegin kulanadooda maadaama shaqaaluhu markasta ay yihiin dhexdhexaad shaqaaluhu runtii waxa uu xusay in agaasimayaasha guud ay yihiin xubnaha ugu sarreeya shaqaalaha qaranka sida xeerku sheegayo iyo wixii ka hooseeyaba sidaa daraadeed dhammaan waxa wiigan iyo usbuucii ka horreeyeyba aan diiwaan gelinay dhammaan agaasimayaashii guud ee qaranka iyadoo oo fariintaasina runtii aanu la wadaagaynay agaasimo kasta inuu u hogaansanaado xeerka shaqaalaha dawladda sidoo kale waxaa jira runtii shaqaalo fara badan oo la sheegayo inay iyaguna ku dhex milmeen mudaharaadyada iyo rabshadaha jira oo u baahan iyadana in runtii xeerka iyo nidaamka ay u hogaansanaadaan shaqaaluhu oo ay ka fogaadaan kana foojignaadaan wax kasta oo khalkhal iyo anshaxumo keenaya oo runtii xeerkuna uu jideeyey oo uu waajibiyey in shaqaaluhu ay ka fogaadaan marka runtii shaqaalaha qaranka waxaan kula dardaarmayaa inay xeerka akhriyaan waxaan kula dardaarmayaa inay ka fogaadaan wax kasta oo saameyn ku yeelanaya shaqadooda runtii waxaana soo gaadhay oo aanu haynaa kiisas fara badan oo shaqaale dawladeed ahaa oo runtii ku milmay siyaasadda oo laga qaadi doono iyagana tallaabo sida uu xeerku waajibiyey iyo sidoo kale shaqaale fara badan oo iyaguna ku milmay arrimaha fowdada ah ee wadanka imika qalalaasaha ee ay doonayaan dad inay abuuraan taasina runtii ay tahay mid aan xeerka iyo waajibaadka qaranku aanu banaanayn una banaaneyn shaqaalaha qaranka aanu banaanayn marka waxyaabahaas oo dhan baa runtii keenaya inaan wacyigelin iyo kulan warbaahineedkan aan u qabanno annagoo jecel shaqaalaha qaranka maadaama la jeclo aan ka qabno shaqaalaha qaranka maadaama aan runtii markasta u helanahay inaan u hiilino maadaama shaqaalaha qaranka markasta aan jecelnahay inay horumaraan inay iyaguna gartaan waxa lagu leeyahay waajibaadka ee xeerku jideeyey wax ka baxsan oo waxa xeerku jideeyey oo shaqaalaha laga doonaya ma jirto qofku fikradiisa iyo aragtidiisa shakhsiga gaar buu yahay xor buu yahay laakiin waxyaabaha xeerku uu runtii u diiday uu ka reebay in la iska ilaaliyo oo aan lagu mulmin xisbiyadan ururada faraha badan leh runtii maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaya taageerayaashooda iyo gelitaankooda iyo ololahooga in aanu runtii qayb laga ahaanin sanadkan waxyaabaha runtii aanu jecelnahay aan xoogga saarayno waxaa ka mid ah
maadaama shaqaalaha sida aan sheegay rajo weyn iyo runtii iyo kalsooni weyn aan ku qabno horumarintooda hay'ad shaqaale ahaan inaan xooga saari doono sanadkan haddii ilaahay idhaahdo qaabkii shaqaale weynaha qaranku ay u heli lahaayeen xaqii iyo howlgabkii ay xaqa u lahaayeen iyadoo runtii aan imika gacanta ku hayno xeerkii howlgabka waxaa kaloo runtii aan ku dadaali doonaa sanadkan oo aan xooga saari doonaa insha allah inaanu qeybta darajada iyo mushahar bixinta waqti badan gelino sidii loo simi lahaa shaqaale weynaha qaranka iyo runtii dhammaan shaqaalahaba iyo sidoo kale in la mideeyo oo ay noqoto in la sameeyo system guud oo lagu maamulo shaqaale weynaha qaranka oo loo yaqaano human resource management information system marka runtii inahaas maadaama hay'adda shaqaaluhu ay ku foogan tahay horumarka iyo dadaalkaasi in shaqaaluhuna ay nala dareemaan inay waajibka lagu leeyahay runtii ay dhiirigeliyaan ay kasoo baxaan inahaasa ugu muhiimsanaa waxaan aada ugu faraxsanahay inuu inala joogo wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada oo ah guddoomiyihii guddiga dib u habeynta shaqaalaha qaranka marka wasiirka waxaa kaloo runtii iyo tiimka kale agaasimaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha commissioneerka iyo agaasimayaasha kaleba runtii ay u foogan yihiin ay u taagan yihiin markasta shaqaalaha sidii loo horumarin lahaa sidii waqti loo gelin lahaa idinkuna runtii waajibka laydinka baahan yahay aad runtii uga soo bixi lahaydeen marka runtii aad iyo aad baan markaa idinku mahadnaqaya dhammaantiin waana sharafna runtii way noo tahay in maanta kulankan aan idinku yeedhno warbaahintana aad baan runtii ugu mahadnaqaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu